هو مركه intuu yariyay adabka fiican akhlaaqda fiican dhaqanka fiican dadka wanaagsan in looga sheekeeyo waa wasiila tarbawiya Soomaalida dhaqankeeda marka dib ugu noqono masaladan way taqaanay laakiin waxay ku salaysnayd hadafka tarbawiga ay leeyihiin dhaqanka Soomaaliga waa dhaqan reer miyiga xooluhu markuu soo xaroodo ee la soo xareeyo markaaba hadhuubka lama hoos galo xoolaha waa la xareeyaa waa nastaan waa degaan gala xidigaaba loo eegaa xidig heblaaya markay dhacday uma hadhuubka lala hoos galaa carruurtii maanta oo dhan xoolaha raacaysay haddii ay sugto oo la yidhaahdo ha sugaan caanaha inta la lisayo way luloodaan waxaa caado ah markaa dadka waaweyn inuu carruurta u sheekeeyo islaamaha waaweyn iyo kuwaas inay carruurta sheeko u bilaabaan sheekaa looga sheekeeyaa sheeka Soomaaliga carruurta loo sheegaa wuxuu u badnaa sheekooyin ku saabsiisan libaax iyo yani dhiirani sheekooyin ku saabsan waayo ninka reer miyiga ah tarbiyada laga rabay waxa qof adag oo dhiiran oo wax iska dhicin kara inuu noqdo haraad u adkaysta geel raaci kara libaax ka dhicin kara waraabo dhicin kara marka qisaska Soomaaliga nooca ku saabsan waa wada waraabe iyo libaax iyo dawaco iyo bahal bay ka waramayaan laakiin wuxuu waafaqsan yahay manhajkii fikrigooda ahaa ama ilmahay rabeen noocu noqonayay buu waafaqsan yahay waxaynu u baahanay ilmuhu inuu sheeko helo waa laga maarmaan laakiin qisadu waa inay noqotaa qiso haadifa oo macna samaynaysa oo musulka ama afkaarta la rabo in ilmaha loo gudbiyo weeleeya waliba ilmahan dambe mucaasarka ahina siiba dugsi hoose markuu dhigto waxbay akhriyaan inan yar baan arkay oo shahaado la soo siiyey dugsi hoose ku jirta muddo yar oo 2-3 bilood ka dhadhow ayay 5,000 page akhriday waa inan yar Soomaaliyeed shahaado la soo siiyey 5,000 page inay soo akhriday كل هذه القراءة waxay ku salaysnayd laakiin de wixii uu iyagu ay siinayeen ama bookskay u dhiibayeen ama qaabkay rabeen inuu fakaro waxaynu u baahanay ama af Soomaaliya ku qoraato ama af Ingiriisi ku qoraato ama af Carabi ku qoraato luqada qofkani garanayo ama qisas buugaaga ama kuwa waalidku ka sheekeeya ama macallinku ka sheekeeya ama waxa kan laga sheekeeyo waa asaaliibta dhalinta yar yar ugu tirada badan lee lagu raadeeyo maskaxdiisa wax loogu sheegi karo